mayno 80 jirka harti colaadu ku baaqaya waan la qaadanaa anagu 20 jira halkani waa ceergaabo waxaan ku yiri nimanka sheegaya ceergaabo leh colaad baan ku soo qaadanaa wax ka hadlaya la ceergaabo aanu leenayo waxaad idin sheegnaa runta idin sheegnaa dhulkayga 100 kilomitir baa xagaa bari ka xiga dhulkayga niman beere degan baatiin hadaad beerihiin iyo gurihiina ku ciyaaraysaan de kaalay oo ku ciyaara waad idigu soo dhaweynaynaa magaalada ma fahamtay soo dheerayaan idin leenahay waxaad haysaana la kaalaya nimanka waxaan sheegayaa kale ee nabadda ku baaqaya ee hadii gudida garxajista iyo meelahaas ka soo hadlaya nabadda ku baaqaya waxaan u sheegayaa warniyo markuu ninku nabadda ka hadlayo markaad colaad u diyaar garowdo ayaa nabad la helaa anigu maanta dadkayga waxaan farayaa miyi iyo magaalaba inay dadkaygu colaad u diyaar garoobaan nabadna ugu baaqi mayno 80 jirka harti colaadu ku baaqaya waan la qaadanaa anagu 20 jira waxaanu leenahay dadkaygu ha diyaar garoobaan waxba yaanay wax dhulka idiga oolin waxaad aragtaan ee idin soo dhaxmaray hadaad gaadh aragtaan iyo hadaad wax aragtaanna waxaad aragtaan buufiyo babiya waxna ha u dhiganina shimbir haday idin soo dhaxmartay shimbirta dila marka anagu waxaanu leenahay colaada hartiyo ku baaqday 80 jiradin iyo garaadadiina adeer waa idin la qaadanaa anagu 20 jir saaqa waanan qaadanay waa idin soo dhaweynaynaa waxaan kala helnaan leenahay magaaladana adeerde inay martidu ku qaylisan maahe dadkii lahaa waa tan lahaanaya qolada la ciidan hal naga soo qaadayo ciidan baan dul degan waxaan u sheegayaa dhulka horta waa Soomaaliland ciidankuna dhulkiisii buu joogaa meel kale ma joogo waxa ciidan naga qaaday iyo dib nooga qaaday ciidankaasna waa tii laascaanood lagu qabsaday mid aad iga yeelanana runtii maamulka gobolka iyo dadka shacabka ma aha marka waxaan leeyahay meel ciidan laga qaadaya ma jirto ciidanku dhulkiisii buu joogaa ciidiisii buu joogaa ilaa iyo jiidali ilaa iyo meel kasta la geenaya 100 kilomitir baa ceergaabo bari loo dhaafinaya ciidanka bartaasay deganaanayaan dhulkoodii bay joogaan ciidan dib loo qaadayo iyo ciidan loo odhanayo naga qaada ciidan baa nacaburiye adeer ciidanku calankiisa tawxiid kala buu ilaashanaya ninkaan calan tawxiid la ogolayno adigu imika saaka ka luge magaalada wixii ka yaala ka qaado ma fahamtay runta lagu sheegayaa ciidanku laakiin dhulkiisu joogaa waa kula shaqeynaa haddana shacabnahay waan ku soo dhaweynaynaa waan ku garab taaganahay waa la dhimanaynaa waa horkacaynaa ciidanka